aan midnimo ku weyno aan lagu keenayn khilaaf iyo isbarbaryac waxay nooga tageen in nabad waxaan ku weyno aan lagu keenayn colaad iyo qalalaase dalka laga oogo waxay nooga tageen in walaalnimo iyo isqadarin waxaan ku weyno aan lagu helayn nacayb iyo xaasidnimo sidaas daraaddeed waxaan rabaa caawa inaan xasuusanno waxyaabaha aan soo marnay waxaan soo marnay inaan ahayn dawladdii ugu horraysay afrikaan ah ee dunida u sheegta waxa macnaha ay leedahay dimuqraadiyanimadu waxaan rabaa inaad ogaataan dadkii calankeenna dhidibada u aasay dadkii xorriyadda keenay inay ahaayeen kuwii ummadda aan la noolnahay dunidana u sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ahaayeen gaar ahaan dadka ku dhaqan geeska ama qaaradda Afrika sida kala dambeynta iyo in qof waliba uu codkiisa qof ku doorto ay tahay sida keliya oo la isku xukumi kara annaguna aan tusaale u ahayn waxaan idin sheegaynaa inay muuqatay inuu dhaqaalihii soo hagaagayo inay muuqatay inuu amnigii soo hagaagayo inay muuqatay inay adduunyada noo soo jeesatay inay muuqatay in Soomaaliya dunidu maanta ay u aragto mustaqbalka dunida ma sha Allah